السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقييمها بدن هالكاد نجد داونيسان وشانل كعرض عاشق قف كيدن لها اللين وساحبكين عبد الله محمد عبد CMC مركلة يا مقال عصب مقال كأن ما أنت وحنوها للدونا وحقوق السيارة رمى عفماتك وحنوها للدونا الدوق كان عدا أي كلا دوقته جرك قفك بني آدم قنيني سامي يديك كنوجيسو يقفك أين قنينين وأرن لا يابله حدنا وأرن جرتا إن كان يعدو أيدتك قار كهشو كوا كلنا أي نعبتها إني قنينتو سيدا لوجي هاي كان يعدا قفك اسكما قنينتو وحي قنينتا كليا ماركا يوبا هانتهاي ديك بني آدم سي يوغو بعرميسو وكمها أي حبار سنتهاي كان يعدا الله وحكومة نستي أود أركتي يمد أورن أو هير سرعة وأيكو كلا ساعته دتكاي وباهنتهاي إني ديجا كنوكتو sidaasi awgeed dhiigga ay u baahan tahay waa inuu noqdaa dhiig iyada iyo ukumaheeda caafimaad u leh oo ay xiisaanayso sida qofka bini aadamkaba uu uga fogaado cunooyinka qaar oo uusan ka helin ama uu necab yahay maxay tahay waxa ay qofka ku doorato ama waxa ay dooqeeda ku xulato kaneecada waa su'aal aad muhiim u ah oo cilmi baarayaashu ku bixiyeen waqti dheer si ay u ogaadaan sirta ka dambaysa arrintan way jiraan waxyaabo la ogaaday laakiin waa arrin wali u baahan in si qoto dheer loo ogaado ama loogu salgaaro waxaan ku soo qaadan doonaa ilaa 9 qodob oo la ogaaday waxa ay ku doorato kaneecada dooqe ay leedahay number 1 waa hidaha qofka boqolkiiba 85 waxaa mas'uul ka ah jiniskeena ama hidaraaceena ama abuuristeena number 2 dufanka kolestaroolka dufankan hadduu ku badan yahay maqaarka waxaa la arkay in kaneecadu ay aad u jeceshahay laakiin qasab ma ahan in haddii dhiigga la baaro la arko in kolestaroolkaaga uu kacsan yahay numberka 3 aashitada uriga ama aashitada loo yaqaano uric acidka waa walax kale oo jirka soo saaro qofka ay ku badan tahayna waxaa la arkay in ay kaneecadu jeceshahay waana wax ay aad u uriso qodobka 4 hawada kaarboonka dadka soo saara hawada carbon dioxide-ka iyadana aad ayay u jeceshahay inay ka soo agdhawaato qodobka 5 aashitada lactic acid waa maado jirka uu soo saaro dadka qaar ayaa dhididkooda maadadan aad looga helaa waxayna ka mid tahay waxyaabaha kaneecada soo jiita qodobka 6 nooca dhiigga inkastoo dhiig walba ay kaneecadu nuugta laakiin waxaa la arkay inay aad u jeceshahay dhiigga nooca loo yaqaano owga qodobka 7 khamriga waxaa la arkay in kaneecada ay jeceshahay in ay cunto dadka caba khamriga nooca loo yaqaano biirka qodobka 8 cudurrada qaar qofka qaba ama dadka qaba ma cunta kaneecada iyo haddii qofka ay ku badan tahay bakteeriyada qaar oo mas'uulka ah inay soo saarto walxo laga carfin karo dhididka qofka bini aadamka qodobka 9 dharka waxaa la arkay in kaneecadu ay soo jiitaan midabyada madowga iyo guduudka marka dadka labisan dharka midabadaasi leh kaneecadu way soo jiitaan intaasi waa inta ilaa iyo hadda la ogyahay laakiin cilmi baarisyo kala duwan ayaa socda si warbixin dheeraad ah looga helo sirtan fadlan haddii aad tahay dadka kaneecada ay jeceshahay ka xiro sisinyeeri ama mara kaneeco ama waxa loo yaqaano shandarwada si aysan ku qaninin isticmaal kareemyada ama saliidda la marsado oo ay kaneecadu ka cararto qolka ama guriga ku qiiqi geedaha qaar oo ay necab tahay kaneecada sida geedka loo yaqaano baxarsaafka intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkii maanta aan uga hadlayno dooqa kaneecada waa saaxiibkiin cabdulaahi maxamed cabdi CMC iyo janalka curud caashaq oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo